السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتين بتداوضي halkaad nagala socotaan muuqaaladina aalaad nagala socotaan waa bartaan ku leenahay YouTube-ka ee walaalaha waqtiga media in fadlan dad channel-ka cusub tahay subscribe saar halka yar ee cas naga cadda adigoo maasan sheekadan idin la wadaagi doonana hadaad ka hesho like saar si aan u ogaano in waxaan idin soo gudbinay maxay yahay idin qanciyeen kale in kula soo dhawaada barnaamijkeena sheekada shaahid sheekadan maanta idin hayana waxay ku bilaabmaysaa amba ay ka turjumaysaa dadka maxay yahay luqadda aanay lahayn isku qanciya amba maxay yahay dadka yiraahdaa luqad baan naqaanaa ha ahaato carabi ha ahaato english iyo wixii la mid ah markaa beri baa waxa nin ka yimi maxay yahay dhulka carabta ayaaba maxay yahay wuxuu u yimi dad dhulka Soomaalidu yimi ninkuna carabtu ka yimi neersan ii sheegay ka bacdii markuu dhulka Soomaalidu yimi ayaa wuxuu doonay inuu afka Soomaaliga aad u barto ninkaas Soomaaliga aad markuu dhex joogo wuxuu ka fahmi waayay badanaa waxa la yiraahdaa afka Soomaaliga waa afka ugu adag maxay yahay in la bartay dib badan tahay ka bacdii ninkii markuu muddo joogaba maalintii dambe ayaa wuxuu tagay goob lagu iibiyo hilibku tagay markii meel hilibka lagu iibiyo tagay wuxuu dhex fadhiyaa ama dhex socdaa ama dhex taagnaadaba wuxuu arkay amba maqlay kelmadda ah faash kelmaddaas uu soo qaybay maalintii faash waqalkiisii la tagay uu la soo noqday faashna wuxuu maadaama inay meel hilib uu tagay faashka wuxuu ka soo qaybay dadku markii hilibka la googooynayo faash baa lagu googooyaa dumarkii raggii hilulayaasha waxay yiraahdaan ba faash dhibiyo wixii la mid ah faashkii waa waqalkiisii la tagay uu habeenkii uu ka soo qaybay Soomaaliga ka bacdeen markuu faashkii soo qaybay ay maalintii labaad baadana suuqa u baxay ka bacdeen meel ragjaad iyo wax ku qaybsanayaan buu soo marayo raggii buu ku yiri raggii baa badanaa waxay lahayn ii kordhi jaadkii wixii la mid ah dabad maalintii labaad wuxuu soo qaybay kelmadii ii kordhi buu xaafadiisa la tagay oo way soo hoydin maxay yahay qaybaana meel jaad ku qaybsanayay ii kordhi kelmadaas aad ugu badnayd ii kordhi iyo horena wuxuu haystay faash labadaas uu haystay maalintii saddexaad baadana meel magaalada kamid ah buu tagay markuu magaaladii meel kamid ah tagay ayaa wuxuu soo qaybay kelmadda badanaa haana wax la isticmaalo marka wax la isku afkarto iyo wixii la mid ah dad badan wax isku afkartayba maalintaana ka hag dhawaayo kelmadda buu soo qaybay kelmaddii buu gurigiisa la tagay hore wuxuu haystay faash iyo ii kordhi maantana buu la yimi ka bacdeen isla habeenkii kelmadda haana si wanaagsan u qaybay ayaa agagaarkiisii waxa ka dhacay nin baa lagu dilay ka bacdeen dadkii booliskii baa ururiyay dadkii ka hag dhawaa aagaasi dadkii oo dhan markii la geeyay jeelkii amba goobtii dambiga lagu baadhayay ayaaba waxa lagu yiri qof walba maadiga dilay qof walba may buu yiraahdaa isagoo kelmadu qaybay baa kamid ahayd maadiga dilay markii la soo gaaray buu hayro ka bacdeen markii la yiri maxaad ku dishayna faash buu yiri faashna waxay kamid ahayd kelmadii uu qaybsanaa sidii baa ninkii lagu xukumay oo maxay yahay ku jiray muddo badan maalintii sidii ka soo baxay laga soo saarayna buu yiri ma ku fasaxayntu buu yiri ii kordhiya marka saddexdaas kelmadood iyo wixii la mid ah waxay ka turjumayaan inaad luqada aad u aqoonin si walba u barataba aad ka taxadirto waxa la afaada qoona abaha uu suu kaaga yeersiiyay wixii la mid ah marka aad baad u maasantiin daawashada sheekadan iyo wixii la mid ah halka nagala socotaan mar walbana waa walaalaha waqtiga media sheekada xigta nabadgeliyo aad baad u maasantiin